Kalluumeysiga waa ilo kale oo dhaqaale oo dekedaha Soomaaliya ay uga faa'iideysan karto in ay dhaqaalaha dalka ay ku hormariso. Dabcan dekedahana waa ilaha dhaqaalaha marka laga hadlayo badda iyo bariga iyo hawada. Marka dal marka saddex meel ay wax ka soo galaan, mid waa macnaha dhulka oo xuduudaha dhulka in dhaqaale ka sameeyo wadankaas, in uu hawada oo lacag uu ka helo, iyo badda inuu dekedahaas. Marka dekedaha waa waxay muhiim u tahay si guud iyo si gaar ah dhaqaalaha dal uu leeyahay. Dabcan Soomaaliya ma ku sii jirto maadaama ay leedahay xeeb aad u dheer, waxay ka saacidi kartaa marka dekeda aad u badan inay yeelato, taasoo marka dhaqaalaha gudaha dadka Soomaalida ay isticmaali karaan. Dabcan wadamada deriska sida Ethiopia oo aan ognahay inay bad aysan lahayn, dad aad u tiro badan ay yihiin, aan uga faa'iideysan karno ganacsi ahaan inaan kula ganacsano, aan dabcan lacagna aan ka helno. Dekedaha siyaabo kala duwan looga faa'iideysan karaa. Waa mid koowaad in ay dadka gudaha locally ay quudiyaan. Maxaa yeelay Soomaaliya waxaan ognahay 30 sano la soo dhaafay wadanka wax soo saar gudaha ma lahan. Waxaan ku xirnaa 90% waxyaabaha dibadda laga keeno. Haddii aan leeyahay briskii, cuntada daruuriga ahaa, sidoo kale dabcan waa wadan aan waxba soo saaranin. Marka waxay naga anfacaysaa dhammaan waxyaabaha aan soo dhoofsano oo dibadda ka yimaado dekedihii ay noo soo marayeen waay. Soomaaliya waxyaabaha hadda ay dhoofiso oo ugu muhiimsan waxaa kamid ah xoolaha nool oo wadamada qaliijka aan geyno. Waxaa soo raaco sisinta iyo liinanaanta oo ayagana wadanka laga dhoofiyo haba yaraade cadadkooda. Dabcan ayagana markaas inaan wadanka ay wax ka baxaan ayay u sabab yihiin. Dabcan hadda waayadan dambe oo dekedihii ay tartan galeen, waxaan ognahay hadda dekeda Somaliland oo kale oo DP World gacanta ay ku hayso, even though share aad u badan ay ka qaateen, haddana laakiin weli dhaqaalaha wadanka soo galayo oo maxaa lahaa lacag waxaa ka soo galayso aad u badan oo dhaqaalihi xatii wax ka qaban karta Somaliland oo dadka shaqo abuur u noqon karto. Marka la joogo hadda dekedan cusub macnaha tii Boosaaso ku taalo oo kale inay Boosaaso dhisanto waxaa sabab u ah dekedaas. Haddaysan dekedu ku ol lahayn Boosaaso, dabcan dhaqaalaha Boosaaso iyo dadkaas qalqiyaas aadka u badan waxa soo jiito waa dekedaas. Hadda waxaan ognahay Garacad oo meel firaaqa ah 2 sano ama 3 sano kadib waxay noqon doontaa meel aad u dhisan, dad badan ay u ganacsi tagaan, dhulkeeda uu qaaloobo. Waxaan ognahay hadda xoolaha laga dhoofiyo Soomaaliya intooda badan berbera la geeyaa. Waxaa laga yaabaa neefkii laga waday gobolada dhexe ilaa iyo berber inuu waqti dheer ku qaato. Haddii marka dekedan ay si rasmi u shaqeyso waxaa abuurmi doono xoolo badan oo loo qaadi lahaa berbere in gobolada dhexe ay ka baxaan dekedan. Dabcan Muqdisho oo dowladda federaalka ay degan tahay, lacagta ugu badan waxay ka soo gashaa dekedii Elborka. Marka waa dareemi kartaa dal dhan dhaqaalihiisa midkiisa labaad iyo koowaad inuu yahay dekeda. Marka inahaasoo dhan haddii ahaan leed wax la dhoofiyo, haddii ahaan leed wax la soo dejiyo, haddii ahaan leed dib u dhiski, haddii ahaan leed shaqo abuurki, waxaasoo dhan ay ka qayb qaadan karaan dekedaha dalka. Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado dekedaha marka ay bataan waxay abuuri karaan fursado caalami ah, sida inay wadamada maraakiib caalami ay kusoo xirtaan, ay noqoto hab maraakiibta ama ay ku kala wareejiyaan badeecadaha. Waxaan ogeynay sanado ka hor Dubai waxay ahaan jirtay meel maraakiibta caalamka kula wareegaan. Hadda waxaa loo wareegay wadankan oo wadan qaliijka kamid ah, magaciisa ma xasuusto. Soomaaliya marka waxaa laga yaabaa maraakiibta u socoto South Africa oo kale ama bariga Afrikada dhexe inay Soomaaliya u noqoto hab oo lagu kala wareejiyo maraakiibta. Taasna ay saamaxday marka in dhaqaalihii wadanka uu kor u kaco, marka maalgelin caalami la helo, Soomaali badan ay shaqo ka helaan. Marka inahaasoo dhan waxaan dhihi karaa waa muhiim ay u tahay dekeda.